waan u yar fiirsadayo xoogaa baan eegay markaa wuu dareemay inaan ninkan ku maqanahay markaa su-aal bi weydiiyey si ay igu yidhi waryaa i caawi saaxiib marka waxaan ku yidhi maxaan kaa caawiyaa haa wuxuu igu yidhi dee hawsha aan hayo ila qabo oo ila tun taasoo mushkilad gaaraya xoogaa waan iska hira jirdiiday sheekadii haddana nin aad u taag daran wixii kuley baahiyo hayso hawshii wadada waan arkay marka waan haye baan ku yidhi intaan xoogaa anoon ku faraxsanayn in haddana ka qaado markaasaan ugu yara dhiftay anna bahashii bal ka yara nas haye wuxuu yidhi miyaad cuntaa qaadka markaa isaga wuxuu uga jeedaa bal inaan hawshan la galo ood markaa halkaa kala wado haa markaa bujaadka maad cuntaa markaasaan ku yidhi markaan doono waan cunaa waa markaan u baahdo markaas wuu igu yidhi ha cuni markaa waxaan anigu u celiyey jaadka haddaad adigu kii sii qallalayna tumanayso markaad kii qoyaynaa weyday maxay ahayd faa'iido weyn baad ku haysaaba adigu maxaad iga waanidaad iga siinaysaa nacam dee anigu ma qaadan karaba inaad igu dhiirigelisay haddaad faa'iido ku haysid haade wuxuu igu yidhi markaa sheeko dheer baan dhex martay oo xataa wuxuu tusay sawir uu leeyahay kaarkiisa ku dhajisan nin daayar buu hadda ahaan markaan eegay kaarkii iyo wejigiisa was yeelan waayeen iyo moogtahay taariikhdii ku qorayd marka waxaan ku idhi ma adiga haa buu igu yidhi magacii ku qoraa meesha baan ku idhi magacani adiga maaha ninkan hebel markaan magacii daacad baan ku bedelay inaan magacii oo caadi sheega ma rabo wuxuu yidhi waa daacad sheekadii anigu maalintii sidii baan kaga rawaxay wuxuu iiga sheekeeyey qiso aad u dheer oo gabayga dhexdiisa aan ku soo koobay lagana dhexeli doono markaa daacad wuxuu igu yidhi maalin markaan ka maqnaa maalintii labaad baan imid gurigiisa oo ituso wuxuu yidhi halkan aan galaa meel aan markaan naga fogin gurigaasaan galaa oon deganahay guri yar oo iska baaba'san oo jaar baabad noqotay halkan uu joogo isagoo aan markaan anigu aan ku kulannay bartaad ku kulanteen maanu ka dheerayn ka dheeray maalintii dambe aan ugu imid halkii anaa guriga ku garaacay isagoo halkii iska jiifa wuxuu sheegay inaan waxaas lahayn ninkani oo xataa aanu weli guursan uu nin dooba yahay xaaladiisa markaad aragtana dee aad isleedahay ma ninkan 100 iyo siyaadu jira صح بقول يسيادة markaan eegay taariikhda ku qoran ee meeshana dhalashadiisana waa aad bay uga yartahay صح marka waa isku malayn waayey waan gartay wuxuu ii sheegay markaa dhibaatadaas oo dhan in bahalkan inuu aabow yahay oo qaadku aabow yahay gabaygan markaa kulli sheekada dadka waxaan ugu daynaynaa halkan kala dhex baxaan halkan ku jirtaa marka waa gabay waqtigiisii yimi baan oran karnaa insha Allah haye gabaygan ugu geli doona waxaan markaan waxaan ka bilaabay war adiga ma hayo waa anigadii isagoo hadlayaan ka bilaabo markaa wuxuu igu leeyahay daacad baan ahaye doobna waan ahaye doqonna ma ahayne geedkana ay doorshay oo ay kala dooxay oo dabkay saaray oo duqiga yeelay qaadkana uu dabargo oo daado dunidu kaa guurtay laguma doodoono oo ku wada dayni isagii baa markaas ka galay anna su'aal dabacsan oo dareenkiisa kaga war doonayo ayaan ku soo daayey daacadow qaadka sida tan kuu doorshay nolol kuu diiday ee darxumadiisa dhab u dareemaysa kana ducaynayso maad iska badays intaad isaga habaaraysa qaadka leedahay dabargo iyo waxa adigu mad gacan gaadhi iska diisid baan ku yidhi faraha ka qaad ha daacad wuxuu sheegay diiftan igu taala daranyada foolxun darag la'aantayda waan damqanayaaye oon ka didayaaye wuu i dilay geedku dayna kari maayo maalintuu daaho amase aan diido een dib uga jeesto waxa diyaarii ah oo i dili doona jeefka igu deerto oo dam iga siiya cudur dibaab sheegta oo dareenkaaga iyo damiirkaaga diiqad gelinaya oon dawo u waayey iyo dabiibtoona kaaga darantiina degelada jiirka muruqyada duuban dhabarka duudkiisa iyo dubkayga oo dhan ayaa kala daata oo dirgani waaya lafuhu waa digada xubin kasta daasho oo soo dabacda dib uma toosayo debed ma gaadhayo kaadi uma diira xaaje kala daaba inta nafka ku hayo haa ma inta markaan cunin oo iga maqayn waa markii iga maqayn haa waxaan ku yidhi daacad doos kolkaad haysa qaylku deeqaayay eed mirqaan damacdo waa sidee dunidu iyo dabuubtaadu ama sadooqaagu daacad wuxuu sheegay maalintaan duubta daanku ii buuxo weliba aan diiro ee dabku i taabto ee udadimo qaadku een fidhicil doonto ciridka dooxdooxo miisigana daara waxaa noqdaa dunida weli dawaafaya dayax iftiimaya waxaan dajaaheedha daara kala nooca dowlad iyo maamul anin la ii doorto ciidan igu dayran daacadii wadaa iyo dastuur fiican waxa ay soo doonta haa daacadii wadaa buu yidhi xilli yar dabadeedna waxay soo doonta duulis wada haysta kala dacwoonayo oo iswada diidan doodu kala qaadka doo u kala sheega aniga oo daalan waxa daf ii soo leh gabadh wax doonaysa
oo darxumadeeda duhuraday maanta dubli soo siisay dawdarkii iyo dhaarta daacadiga mooday oon docdiga reerka doolar ugu sheegay buu markuu duhurkii ka soo qaaday gabadha ugu dhaartay in lacag guriga u taalo markaa uu siin doonaan hadhow toole daranyo ba buu yidhi dumar ma waantoobo beena kama daayo cayda darandoori ha iska duramlayso maba daraanjeeyo horay iigu daashay deerka iga siibtay dareer i leefsiisay dabadbaxniinkeeda anna doxaantayda waxaan dejaa hawlo faalla daba dheer leh iyo go'aan door oo barjaha diidan waxaan idhaadaadi qaad hadoodoonin daaba hadalkiisa maanta dabadeedna dacar ha kuu yeesho waxaan gartaa dowga iyo dantaydoo dhan waaga daalacayna waxaan noqdaa daacadu dermada jiifa dabaqyadii mooyi darajadii mooyi dumi go'aankiina dayda iyo raadco soo daweri qaadka qosol intuu deexday daamankana waaxid daacad wuxuu sheegay dhalanma duugoobo doqonma waantoobo hadalba wuu daayey wuu iga aamusay xoogaa markaa daacad wuxuu sheegay aabbahay duunyo waa sheekadiisi uu iga sheekayna taarikhnololeedkiis markaa aabbahay duunyo doolar iyo xoolo dabaq kastuu buuxshay dadna anoo keliya iyo duqdii hooyo oo in dheer dunida kaga dambayn weday ayuu ka diranayay aabba dabadiina lacagtii way duushay xoolihii dabargo aqalladii daadi waxa ka sii direg leh 2 qoloo duuga oo dudumo moodo oon u daymoobay 2 qoloo iyaga laftoodu aan u daymaysanahay oo lagu dul xalaashi karo duunyadaasoo dhan gebi dabkaan saaray dheefna kuma doorsan waxaan ku daaduumay dayda iyo meel xun soo daldala qaadka dumarka hawshooda dana yar mooyaane meherka waan diiday dayri ma lahayne waan dib dhiganayay wayse degi weyday ubadka daantooda inaan da'daydiiyo oon mar wada duullay oon hotel dabacsan wada dekaynaynay ayaa dacwaal dhigatay oo dibiro sheegtay waan dafiray tiina laga dilyaa mooyi diratayaa mooyi cidima doodoni buu ugu dambayntiina daacad hadalkiisa wuxuu ku soo duubay hadal duq weeyaane maqal dabuubtayda waa dardaarane qor waana dane qaado waa digniin culusee ha iga daranyeynin waa duruus dhabahee geli dubaaqaaga daacad baana haye iga qor diiwaanka dulucdu waa taase qaadka dabargooya wuu ku dagayaaye eega danahaaga wuu ku duubsanaya daafac noloshaada wuu ku dilayaaye ka baxir dookhaaga reer intuu dumiyey wuu dad kala geeyey duni abaareeyey ee dartii qaadka dhalaha loo daadjay wuu jacayl didiyey laba isdoonaysa kala dareensiiyey doonya kala saaray dhalin intuu daadjay wuu dugsiga seejay ruuxna kama daahna doodi kama taagna aniga hay dade ha iga daha ciile kiina dihin dhowra adna ha doodoonin uga di qayrkaana buu gabayga intaas ku eegyahay dawdayaal haddaynu intaas si gabaygaasi kaga soo noqonno aynu furka uga dhignay barnaamijka kani waxaan kusii socon doonaa qaybihii kale barnaamijkeena haddaynu soo noqonno qaybaha kale barnaamijkeena waxaan kasoo tallaabsanay qaybo kale barnaamijkeena markaa waxaa la odhan karaa barnaamijyadii hore u bixi jiray uu ka gedisan yahay ababe maxamed muumin ababe waa kuma dad badan oo ku garanaya way jiraan oo aad heeso u samaysay qaar heesahaaga dhageystay qaar aad asxaab tihiin qaar aad ehel tihiin laakiin intaaba waxa ka badan kuwa heesaha u gaadheen balse aan adiga maanta hadday suuqa kaaga soo horbaxaan ku garanay abwaan maxamed muumin ababe waa kuma taariikh nololeedkaaga kooban aad baad mahadsantahay waa su-aal wanaagsan horta dadka intaan isgaranayno iyo intaan garanayn baan hadda kulli igu cusba waxaan leeyahay aad baan u salaamayaa barasho wanaagsan baan leeyahay inta igu cusubna waxa weeye abwaan ababe horta waa kan waa ninkaa ku horjooga taariikh nololeedkaygu waxaad moodaa inaan bilowgeedii joogo afkeedii hore malaha markaan mooyaan iyo dayna anigu malaha anaa isda yaraynaye malaha baashimada markaan cerra iyo maxay iyo aan weyn noqon taariikh nololeedkayga waxaan soo maraydu way ii dambaysaa garanayn ba garanay waxaan dib baan u dhiganayaa dee berigii dambe is weydiin doonaa labadeenniba bilowgeedii baynu joognaa noloshii nabadee nolosha korka qaybteedii hore ku jiraa in dee alla inagu gaadhsiiyaba oo dee waxaa la yidhahdaa odaybaa waxaa la yidhi wiil yar baa odayaal meel fadhiya buu yimido odayaal badanoo da'aho malaha dee sheekaysanaya oo markaasuu ku yidhi meesha maxaa madax bislaaday odayaashii mog odayaashii waxay ku yidhaaheen madaxyo muxuu ahaa qaydhinka lagu cunaaba way jiraan maxaa midha bislaaday buu ku yidhi oo dee odayaashii waaweynaa camgeerida u dhaweynaya markaaba waxay ku yidhahdeen midho qaydhinka lagu cunaaba adeer way jiraan
way jiraan ee ku weerarta dad baahanta haye marka nacam dema way dhici kartaa adigu inaad yaraanba lagu dhinto de waa run oo nacam geeridu da ma leh waa run de hadda nacam waxaan ku jira taariikhda bilowgeeda intii daal inagu gaarsiiyaba kulli de qofku yaraana waa lagu dhintaa weynaana intii alla ku gaarsiiyay tahay waxaan uga jeedaa waxaan ka cudur daaranayaa kelmaddan taariikh nololeedkiina bilowgeedii baan joognaa intay noo hadhayna ma garan karno haye marka intay garanaysa kulli waxaan leedahay waa salaamantihiin intaana garanayna barasho wanaagsan waana idin salaamaya marka la nooni soraysa aad iyo way halka hadeen kaga gudubno marka laga yimaado taariikh nololeedkaaga gaarka ah goorma ayaa dareentay hibadani alle kuugu deeqay ee halabuurnimo waa su'aal wanaagsan goorma ayaa dareentay goorma ayaad soo bandhigtay heeskii ugu horreeyay ama gabaygii ugu horreeyay se goormaad ka samaysay anigu gabayadan ku horreeyay gabayadaad ku horreysay waxaan dareemay moogtahay in aan hibadani iigu jirto xilli aan aad u yaraa kulley igama ahayn aad gabaydid iyo aad bal shaqada aad berido nooca aad noqotid ismaan odhan xilli aan ku tashan karina ma ahayn laakiin wuxuu iska ahaa wax iska gabayga waxa la yidhahdaa hidda keentay iyo hiba keentay iyo hibasho keentay iyo ku macnayaheed waa markaa kaagu adigu hidda keentaygaasaan ku jira hidda keentayad ku jirtaa xilligaa wuxuu iska ahaa wax iska caadiya oo xaafadda ama qoyska layska gabiga layska tiriyo ama ereyga layska yidhaahdo marka iskuma dhibin anigu oo ma doodoonin waan la bilaabun marka siduu iigu dhashay xataa duruuftaaba igu keentay ama xilligaas ma odhan karo xilligan xataa bilaabay oo go-aan ma garan karo laakiin xilligan soo bandhigay ayuunbaad garan karaysaa waayo dee waa hidda keentayoo ehelkeedii baad la joogtaa markaa gooru kaasoo burqadaadgaa wiiga mid ahaa markaa goormaa la odhan karaa waad soo bandhigtay gabaygii ugu horreeyay waad samaysay maadaama tiri gabayadan ku horreeyay arday baan ahaa xilliga waaya waxaan ka hadlayay gabay tacliinta ka hadlaya ayaan tiriyay ahayd maanta iima diyaarsan halkan kuma sito laakiin gabay tacliinta ka hadlayo dugsigii aan marka ayaan ka akhriyay ahayd maalin xaflad ay lahayd xilligaas igu horreeyay marka macallimiinteedii baan igu dhiirigeliyay inaan bal hadda abwan ababe markuu gabayga tacliinta tirinayay arday buu ahaa dugsigee buu dhigan jiray fasalka waxaan ahaa ka lixaad haye dugsigee dugsiga alaqsa la odhan jiray alaqsa ha u jira ilaa imika buuraha ku yaala somaliland dugsigaasaan dhiganaya gabaygii bal midhiyo laba ma ka xasuustay ereyadiisii haddaynu xusno adduunyadan dhaqaaqday cilmiga la isku dhaafayo haddaad degaa u leedahay waktiga maad dayaliseene dharaar iyo habeen baad cilmiga dhigan lahaydeeni gabay saas aduu tacliintan ka hadlayay xilliga oo dee leefalkaygiibu ahaa oo dhalinyarta ciyaalkii addee ila midka ahaa dhiiri gelinayo lahaa moogtahay wax dhigta waa run ababe waxaad ka mid tahay kooxda haldoor kooxda haldoor waayo goormay aasasantay maxayse qabataa aad baad u mahadsan tahay kooxda haldoor jr waa koox jr ah waa koox ka mid a kooxaha qaranka jabuuti waa koox dhalinyar oo dhowaan waxay ku soo baxday tartankii 2014 fanaaniintii la soo xulay ee waddanka laga soo xulay bay ka mid ahaayeen marka haddeen halkaa kugu yara dur istaagno jr jr waxa weeyaan waa gaarda republika weeyaan ciidanka ilaalada jamhuuriga ilaalada madaxtooyada ayay ka mid yihiin marka waa kooxda ilaalada madaxtooyada ciidanka ilaalada madaxtooyada ay ka mid yihiin laakiin waa kooxda qaranka oo wax walba oo qaranka hawl kasta oo leeyahay bulshada iyo moogtahay waddankaba hawlo kasta oo ka jira way ka qayb qaataan hawlaha bulshada ka qayb qaataan oo ay moogtahay wixii wacyigelinta iyo wanaaga oo dhan bay ka hadlaan dhaqankay ka hadlaan oo dhaqankii hiddaha horumarka waddanka ma garanaysa hawlaha bulshada oo dhan way ka qayb qaataan waana koox ka tirsan ciidanka ilaalada jamhuuriga marka imika waxaad carabowday in ay waxay ku soo baxeen tartankii koobaad kii koobaad bay ku soo baxeen kooxdii Jentalo aaba yaa loo yaqaan Djibouti xagga Faransiiska marka Jentalo maxay ku noqonaysaa luqadeena Soomaaliga hadaynu waa dhalinyaradii koobaad ee talentiga lahayd oo dhalinyaradii koobaad ee hibada gaarka lahayd marka ma jiray tartamo noocaasi ah oo dabadeed way jireen oo koox dambe ayaguna Jentalo de baa jirta kuwan laakiin waa kooxdii koobaad oo tartanka soo laba ah waa kuwii labaad yaa jira RCD ka shaqeeyaan ciidanka kuwaasi qaybtaasi laakiin qaybtan waa JR waana xulkii koobaad ee la soo xulay moogtahay waddanka dhammaantii laga soo xulay
waxay ahaayeen markaa 8 baa soo baxday 4 Soomaaliya iyo 4 Afar ah 4 Soomaaliya iyo 4 ha kadib waxa lagu soo kordhiyay oo lagu soo xoojiyay wixii kale lagu dari karayay ama de kulli waxba lagu soo biiriyay saga dhaqanka laga dhisay miisiga laga dhisay koox dhisan oo dhameystiran oo qalabkeedii iyo wixeedii oo dhan le maanta oo isku filan weeyay aad baan ugu mahad celinayaa korneelkayga Waliin Maxamed Jaamac oo arintaasi moogtay kooxda de isagu kulli lehde oo heerkan soo gaarsiiyay badbaadiyayna kulli kooxdu way kala daadan lahayd hadii aan gacanta lagu qaban oo moogtay way furfurmi lahayd kooxda isaga u diiday inay furfuranto ama ay kala daadato oo qarameeyana ciidanka dhigay niyadana u dhisay ساساني كل شقيان أدبنا وجم هذا علنية. صح إلهي مهدي سكسكو. محمد شامع بن مهد علنية. يد المهد علنية. يوم مدحونه إن إسماعيل عمر قال له يسنا آد مركزي في رجع رأسي يفنك. آديات في رجع. سجن وجم هذا علنية. سجي مرودي ساعة خضراء. الله بدو والسلامنا. آديات. أنت سادنا كقصة نقطة. كواحد وين قرنين فنك كشغيسو. حمنه دنيا إني أفر يا أفر هايين إمساي هديهن كوحدو لباتن بيجاران أو وحويان وحلقة دسي حاجة دقنكا ميسيشن كقلب كي وحلتهم يردن ميسيشن دي أبوانو أو موتي أنا جو حتى ده حلقة كمان نشرين وأنا جو هسيه قف صباحة هسيه أو ترتمي يعني لسيني يعني سميه بحلقة أو أي كوهسن مركا أبوانو أنا جا يا أبوان كلا عفرية يو موتي إنما دقن كلا دقن كي قانا هدي دقن كعيارسية ayaa ku soo biiray kuwa kale fanaaniin kale oo iyaguna heesaya ayaa ku soo biiray waa koox dhisan oo ma sha Allah qalabaysan oo kooxaha lagu xisaabtamay wadanka meeshooda buuxinaya kamid ah maanta ma sha Allah way marka door nooceey ay ku leeyihiin horumarka baaxadda leh ee haatan ka socda Djibouti kulli waxa la yiraahdaa qof kale u buuhaya kaalintooda ay hayaan oo door muhiim ay ku leeyihiin dhiirigelintu iyo moogtahay dadka in wixii wanaaga moogtahay la hambaliyeeyo oo moogtay waxay kamid tahay waa ka qaybgalka horumarka kamid tahay marka waxay ka ciyaaraan had iyo jeer waxay ka hadlaan waxay la socdaan horumarka wadanka saadaasha wadanka wax kasta soo biira waa ay waxay ka hadlaan ama heeska ka hadlaan ama moogtay waxay doonaan ku muujiyaan suugan ahaan waa shaqada ay qabtaan bay kamid tahay taageerada madaxweynaha moogtahay waxyaalo badan oo noocaas ka hadlaan intaasi haddeen kaga nimaadno kooxda Haldoor dawdeel markani waxaan ku yeeranasan doonaa mid kamid ah abwaan ababe sameeyay oo lahaa curinteeda iyo midhaha heeskan imanka idin soo socda waxa qaada fanaanada Yurgenyo waxaana markaas magaceedu noqonaya waxa dhibsataa dhiba heeskaasi kadib waxaan isugu iman doonaa heeskaasi sidii ku dhashay goortii la sameeyay iyo sababihii Yurgenyo loogu dhiibay daawasho wacan qalbiga ku dhexleedo adbaadigu dheertay sidii dhalayaa indhaha
sidii dhaya indhaha adaan ku dhowraya inana kalgacayl dhabaa dhexdeena ka beermayo xasuusan dhamaaninba qalbiga ku dhexleedaho adbaad igu dheertee sidii dhaya indhaha adaan ku dhowraya waxaa kibsataa idhiba darartaada faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaa kibsataa idhiba darartaada faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay garaadka ku dheehanbu higii kaga mudayo dhimirkaya garashadu gaflaha kala dheeriye anigu dhaqankiyo anshaxa garaadka ku dheehanbu kaga mudayo dhimirkaya garashadu gaflaha kala dheeriye inagu isma dhaafno dhalaanimadeeniban taariikh aan ku dhaadaniyo jacayl soo wada dhisno horaan isku dhaarsano cid kale kuma garab dhige adaan kugu dhiirada inagu isma dhaafno jacayl soo wada dhisno horaan isku dhaarsano cid kale kuma garab dhige adaan kugu dhiirada waxaa kibsataa idhiba darartaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaa kibsataa idhiba darartaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaa kibsataa idhiba darartaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay ayay ana iidhan tahay ayay ana iidhan tahay
intaasi haddii aynu kaga soo noqono daawadayaal heeskaasi aadka u macaan ee aad ku wada raaxaysateen dabcan sidaan rajaynayo midhahaasi aadka u cudoon abwaankii curiyey waa abwaankan hortiina fadhiya ababe hees kulley waxaa la yidhahdaa abwaanku dee qof keliya maaha waa run fanaankuna waa sidaas oo kale waa run waa bulshada oo dhan marka waxa weeye waa dhacdo jacayl dhab ah oo bulshada ka mid ah marka waxa uu leeyahay noolaha dhadig iyo labood alla isku dheelita siday dhuuxa iyo lafuhu dheefta u wadaagayaan ayay isku dhaxal galaan waxay ku dhammaanaysaa akhirka waxaad dhibsataa dhiba dharaartaad faraxsan tahay ayaa la idhan farxaddaydu waa farxaddaada waa sax marka heesku ma wuxuu ka yimid dhankaaga mise fanaanada kaa codsatay mise qof kale ayaad ka samaysay fanaanada aad ugu dhiibtay kulley qiso ama waxa laga sameeyaa wax kugu dhaca ama waxaad goobjoog u tahay ama wax lagaaga warramo waana kala dareen fiican dabcan oo waxaa la yidhahdaa wixii shucuur ahaan kaaga soo gacay shucuurta dadku taabtaa dabcan marka heesku waa hees kulley aniga iga yimid adigu kaa yimid dabcan intaa usii dhaafi mayno kol hadduu adiga kaa yimiye waxaynu geli doonaa qaybaha kale heeska laakiin haddaynu yaro dul istaagno goortii waktigii 2000 iyo waxaan filayaa 14 ama 15 aduu 16 meelahaas ahayd sax waa xilli ay Yurub halkan noogu timiday oo ay halkan heesiyaan siiyay ka mid ahayd waan garsay dhanka gabayada haddaynu soo noqono waxaan markani eegi doonaa mid ka mid ah gabayada aad adigu tiriso kuwooda lagu xiisaha badan yahay gabay la yiraahdo noolaha dhamaantii waan garsay wuxuu ka hadlayaa nolosha iyo habka sidee loo noolaanayo iyo qofka bini'aadamka wax looga baahan yahay oo noolaha kale kaga duwan yahay gabaygan kulley faahfaahintiisa waxaan jeclahay in dadku kala soo dhex baxaan oo maadaama uu af Soomaali yahay sharaxaad badan inaan isku holo mar rabo gabaygan uu yara dheeriyo xoogaa wuxuu ku bilaamayaa noolaha dhammaantii kuwa socodka dhaabee ku dhaqaaqa cagihiiyo ka gurguurta dhoobada dhaalayda duushee hawada ku dheeshiyo kuwa biyo ku dhuuntaba naflaha dhigiisa ah dadku waxay ku dhaafeen ama ay ku dhaamaan caqli dheeli tiran buu rabbigay ku dheeho xayawaan dugaag iyo dhaqan iyo nidaam loo isdhegaysta weeye dhaantada ku soo durug dhakafaarka dunidiyo dhaygag iyo umuurahan kula dhabanahayska ah kula dhoola qosolka ah sida loola dheelaan dhabagale warkeego murti baa ka dhibicdee dhalintii dadweynuhu ha ku soo dhowaadeen horta dhaaxa abidkeeda dheego adduunyadu waxay kula dhaqantaa hadba saad ka dhigato noloshuba dhammaanteed waxa ay ka dhalataa dhaqdhaqaaqa lugihiiyo addimada dhexdoodo qofba wuxuu ka dheefaa hedalkuu u dhiibtiyo dhididkiisa keliyo hadba dhaqashadiisa iyo dhugashada dantiisuu ka helaa dhiggeedii ninka hawl ka dhuuntee dhayalsada dantiisii hedelkii dhabta ahaa dhacdiid ka doorta kolba shay dhaliilo ku dhabara nasiib iyo qadar baa waxay dhimay waxaa la isku dhaafiyo dhalan maaha guushuye dhabadeeda loo maro aan dhowr tilmaamood dhegta kuugu sheegee marka loo dhibtoodaa dhereg iyo wanaag iyo dhaqashada la gaadha dhayd iyo gadhoorka iyo dharab lagu caweeya oo malab la dhuubiyo dhanfaruurta geeduhu intay soo dhowaadaan carabka iyo dhanxadhag iyo dhabanada yimaadaan calaf lagama dhuuntee qalinkana dhabcashiyo orod laguma dhaafee dhawaqaan ku leeyahay waxa uu ka dhigan yahay kama dhimo ilaahay dhibic qura addoomaha dhididkiiyo xaqoogee dulmiguu ka dhaartee nafta dhiirigeliyo dhalanteed ha aaminin wayse dhici karaysaa adigoo dhacdaal iyo daal iyo dhib soo maray inaad weda dheeftii subagaad ka dhamilayd ama kuu dhigmi lahaa balse waxaad ku dhaaftaa ma ogtahay dhirbaaxadu ma horseda dhimashee dhabbaday u sheegtaa qofka dhega adayga dhugan waayo talade dhibta lagu hogoobiyo fashilkii haddeer dhacay ninka raga wuxuma dhimo cashir baabu kuu dhigay cilmi buu dhab kuu baray qaladkiiyo dhaliilaha ku dhex jira naftaada kugu dhuuman ayuu iska dhaaf ku leeyahay shaqada dantaashiyo waqtigaad ku dheeshuu ku tusaa dhibtoodoo fursaddii ku dhaafto tan kale tan dambe dhiggeeda ha dhayrin ku leeyahay ma dhammaanin dunudiye maantaba wixii dhiman ku dhaqsuu ku leeyahay ha dhawaysan raaxada adigoon u dholondholin muddo badan u dhuubnaan dhaxan iyo haraad marin dhabadanada jiilaal u kala lihin dhagtii hore qorraxduna ku dhabanayn dhayar laguma gaadhay noqon geesi dhabar adag dhabaqsiga shaxaadka iyo ii dhiibta kayrkaa ha ku noqon dhadhamaraac iimaanku waa dhare huguyaanu kaa dhiman dhinac kale ka eego dhari aan bislaanayn inaad dararsataan roon rajo aan dhammaanayn in la dhowro ceemo leh balse waxaan la dhaygagay ninka ceelka dhaafee ka wahsaday inuu dhuro ama diiday dhooqada ee dhoomuhuu siday cirka dhoolka joogiyo u dhaqdhaqay xareedee dhada roob ka sugaya surmi dhuuntu roortee ubadkiina dhaa yidhi
kuu dhiibay adigee horta maanu dhoohnayn haldhigaygu wuxuu yey nafta dhaamash ha u tumin kula soco wixii dhaba kola dheema dooddoon kola dheri wax kuu gala kola dhaqasho raadcee kola dhuunigoo qudha waxaa jira nin dhowlo ka hortaga dhibaato dhagar kala badbaadso xasilooni dhaliyo dhulka tola dilaacee adigoon dhantaalayn midna dhinaca saarayn dhexdhexaadii aadmiga isku soo dhowee labo midba dhacan ku oodna naftu waxay ka dhiidhido ama dhiiggu kaa kaco dhulka lagama waayee yaanay cadhadu kaa dhigin wiil dharastay oo kale hana tuurin dhagaxii dib u soo dhabacan kara dhuuxaaga jebin kara ee aan ku dhaafayn kola dhagor shabeel xidho kola dhexirka naagaha dhulka midho u soo dhacay way kaaga dhowyiin kuwa dhoorka saarane ha u dhaafin meel sare hadda dhuuma kuma odhan dhibyarayso kuma odhan dhawaqaan ku leeyahay waxa uu ka dhigan yahay dhalanteed ha aaminin dabadeedna ha isdhigan hana odhan dharaartaa hebel baa dib ii dhigay ka kalaa waxii dhimay haydhasiinin anigana marmarsiya dhici kara qofku markuu arrin ku hongoobo ama uu ku guuldaraysto inta badan eedda qof buu iska saaraa dabcan oo wuxuu qofku ma qirso nacam anaa khaladaad kaa sameeyey eeddu iska duwa dad matalan waxaa jira nin xidhan oo tuugo iyo wax lagu soo xidhay haddaad u jirto oo booqato maalin saaxiib maxaa kugu dhacay oo sidee wax u dhaceen waxaad ku tiraa qaar bay xanibay oo magaranaysaa been iga sheegay waxaana samaynin oo qalbigu dhacay bay yidhahdeen oo maxay xalay bay yidhahdeen saasoo markaa taa lagu soo xanibay laakiin waa maalintaan baxo waxbaa dhici doona ayuu kuqonay waa maalintaan baxo aniguna ka jaran doona waxay ka dhigan tahay weli waa tuug kol hadduu yidhiba waa bixi doona laakiin qofku xataa qaladku de wax dhici kara oo kaa dhaca qofku waa inuu qirtaa hadduu kiraa niyo qaladkaasa iga dhacayo si ahayd ba aduu kulley shaydaan baa qaday dembigaasaan galay tuuganimadaas oo arrinkaasi dhacdayo soona noqon mayso soona noqon mayso laga yaabo qofkaasi mar hadduu qirtay laga yaabo qofkaasi inaanu dib ugu noqon de waxa uu ka bogsaday waa xanuun dawadiisa lahayd marka laakiin inta badan waxaa la samaynayaa wuxuu ku qofku kana moogtahay dib i dhigayo waxaan kalaa i helayo maxaa hawshan kale shaqadan saa ugu qaban weyday qofku wuxuu ku ugu yaraan war maxay ahoo nin reer hebelaa meesha ka shaqeeyo kuwoodu buu shaqaysiiya buu kornay isagaa saaqida oo shaqayn layn oo hawshiisii gabsan kadibna markaas ku rabaa inuu ku dhunto meel kale taasay qisadu ka hadlaysaa dhiggaa lama yaraystee kibir ha iska dhaadhicin dhidig iyo laboodkaba bulshada aad la dhaqan tahay ha ka noqonin dheeraad dadka la soco ha ka dhex bixin dhalintiiyo dadweynaha kulahu ammaandhaba diinteenna dhowrsoon hiddaheenna dhaxalkaa labadaba ku dheehnow runtu dhaxal ma geydee hala dhuumo weliga beentana ka dheerow laxdhukani abaarmog dhulka laguma joogay dhacdada iyo umuuraha nin u dhuun daloolo dhabagala haddaad tahay waxba kuma dhuuntaan dhawaqiyo codkaagana sida tanag bud lala dhacay dhowdhowdu waa cib la iskama qaylqayliyo lama ciyo sidii dhoolo ama weysha dheenka ah hooyadii ku dhowrtee bilo dhowra uurkiiyo dhexda kugu sidaysee dhooniga ka soontee dhalmada iyo fooshii sakaraad dhadhamisee dabadeed dhaqaaliyo kalgacayle xeel dheer kugu dhooba kuustee dhabta kugu habaysee dhistay waxyahaagee dhaqankiiyo asluubtiiyo anshaxaaga dhidibtee ku dhansiisay garashada ee dhaaxa abidkeed inaad dhaafta qayrkaa u dhammaamaxaysee kugu dheehan adigee dhiiggeyga kaa jecel iyo dhaayaheegee dhibta kuu nacaysiiyo aabbihii ku dhalaye aad ku dhaadanaysee lagaa dheegay adigee kugu habay dhibkiis iyo dhididkii naftiisee hagarkaaga dhaartee dabka kugu dhici jiray labaduba ninkaan dhiman way kaa dhursugayaan haka dhimin xaqoogii cidi uma dhammayse ee hadha yelin karaanka weligaa dhaqaale ee dhibri hadalka aad tidhi garabkana u dhaadhici ka dhegaysa waanada ha ka nixin dharaar qudha erey dhiifle ka ogow cilmigana adoon dhigan qofna kuma dhashee garo dhaxalyaanu kula noqon ilmo dharabta jiifiya waayeel dhafo racad midna lagama dhaafina jeerood ka dhimataan waa badan dhammaanina wax la yidhi ka dhaansada burti dhaxalgalaa tidhi haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa waxa ay ka dhigan tahay markay dhiida gaadhee dhudhun iyo awood iyo dhumuc la isku sheegtee dulmi lagu dhawaaqee cadiguna dhammaadee qarannimadu dheelido waddankuna dhaxmoodee calankaagu dhaadhaco ciilada shisheeyaha waa inaad ka dhicisaa geyigana u dhiidhido diinteenna dhowrsoon dhulka lama huraanka ah gobonnimada dheegga ah danta dhabar ahaaneed waa inaad u dhimataa dhayal maaha caashaqu dhacdo weeye qaaliya marka dhinac la eegana noloshuu ka dhigan yahay dhaqankiiyo tafiirtaba dhidibkooga weeyaan dhan kalease loo rogay waxaa hadalka loo dhigay dhirindheeris qodaxdii lagu soo dhoweyn jiray dhaba la isku soo maro dhunkashada sarbeebta ah been iyo dhadhamaraac iyo baahi daba dhow dhereg aan calool jirin dhuunyaal markaa qura dhulka loola kala kaco dhab ahaana xaajadu dhakaday ku socotaa dhagar baase laga galay dhaqankiiyo xishoodkii dhadhanxumada joogtana dheh kaama saarnee habla dhaamash ha u tumin
ha ku dheelin gabadh ugub axdi beena ha u dhigin adigoon dhammaynayn ubax dhigna ha u lulin qaar baa dhallaanahay adiguna ha dhamacsiin ha ka dhumin xaqiiqada qalbigeeda ha u dhicin ha u dhaafin kaydkii hantideeda dhowrsoon ha u qoomin dhuuriyada dhidarkiiyo waraabaha adiguna kuwaa dhaan ilaan waa dhigoodii hablaha aad la dhalatay ilaan waa dhigoodii hablaha aad la dhalatee nabsi taada ha u dhigin iyo dhaxal mageyda ah gafka aad dhakoobisaa kugu soo dhadhaarka eh dhismihii arooskana markaa daadashada guud dhalankeeda gaariyo dhan kastaba ka eegtee dhubadqaadka sheekada dhoolaha ka qososhaan adoon sharafta dhaawicin hiddaheenna dhooqayn xiisuhu dhabkaa yahay ku dhadhabayo oo jecel dhabankiiyo gabaatiga waa inaad ka dhiibtaa gobannimada dhowrtaa xilkana dhabar ka saartaa waxba yaanay dhaantadu kolba ereeye dhayla ah waxba yaana dhaantada kolba ereeye dhayla ah u salaaxin dhoorkee hakad baanu dhigaya dhibicduna waxay tahay doqon baa dhagaatiga xadhig dhuunta loo sudho dhudhummada ku sidatee geesiguma dhuuntee inta aanu dharabtiyo ka dhammaanin xoolkee dhabarka iyo xanjaadkiyo dhabta hooye lagu sido ayuu sii dhalaalaa dhafoorkiisu muuqdaa in rageedka dhiigga leh waxa la dhaha geesi dharabku ma jiro nacam ilmuhu marka uu waa mahmaah moogtay ilmaha yari marka uu dharabta waxa la dhaha waa xoolka hadda imka dhigeeda san baa laga samayn jiray haragga xoolaha laga samayn jiray oo la asli jiray dumarku marka way xidhan jireen si kaadidiisi waxa ay u dhaafiso marka isagoo xoolka ku jira ilmaha yari ayaa la sii gartaa inuu yahay rageed oo halkaas laga sii darana aarkuna ma soo dhaco halka ood la dhababee wuxuu soo dhirbaaxaa meeshii dhaleexsane iska dhiibi shaqalada way intaa haddii aynu kaga nimaadno gabaygaasi aynu soo noqonno bal waxaynu eegi doonaa marka uu abwaanku ereyada samaynayo kolley waa ka duwan tahay oo dee abwaanku waa warshad ay ka soo burqanayaan midho malaayiin qof ay dhegaysanayaan maasha allah hay waqti intee leeg bay abwaanada ku qaadataa inuu midho soo saaro marka laga yimaado kuwa ku soo duxda marka uu sawirka qaato oo kale bilmatel ababa markaa nimanka uga warramo taariikh ama aan ku idhaahdo hees ii samee muddo intee leeg bay ku qaadanaysaa inuu ii sameeyo hees waxay ku xidhan tahay waa su-aal wanaagsan waxayse ku xidhan tahay hal abuurka wuxuu yahay kulley waa runoo dee bulshadana waad u shaqaysaa oo ka mid baa tahay oo mar baa laga yaabaa abwaanka in laga dhex hadlayo adigo fikir adiga kugu jira ama dhacdo adiga kugu dhacday oo abwaanku ka hadlay xilliga lagu samaynayana waxay ku kala duwan tahay dareenka adiga kaa soo go-ay dareenka adiga kaa soo go-ay oo moogtahay adiga kaa yimid shucuur adiga kaa timidaya ama aragti adiga kaa timidaya wuu ka dhaqso badan yahay ku kastoo lagu sheego dabcan marka waxaan hubaa gabayga ugu saamaynta badanna wuxuu noqdaa ama dee heesba ha noqdee adiga kaa soo go-ay fikirkaaga ka yimid ayuu noqonaya abwaanka ka yimid ayuu noqonayaa oo ama dareen dee isagu wax dareen ku dhashay ah ama wax aduu kolley wax aragtida si rasmi adiga kaaga soo go'day taasaa ugu dhaqso badan oo waqtiga ugu kooban aad u samayn uguna saamayn badan oo moogtahay bulshada raadin ku rabta waxa la dhaha hadalku wuxuu taabtaa halkuu ka yimid dabcan ereygu hadduu qalbigaaga ka soo baxay adiga qalbiyada dadku ku dhacaya oo wax qalbi kaaga soo go'a runayo heesaha qaar baa jira lala boodo markaaba oo moogtahay heesa jacaylaho haddana heese aad moodo inay ka dheereeyaan heesayaasha dabcan sababta waxay tahay waa heeso si qalbi ah ama qiso run ah oo laga sameeyey saamayntu waxaa la yidhahdaa hadalku halkuu ka yimid buu taabtaa marka saamaynta saas ku yeeshaa qalbigu ka yimi qalbigaana taabanaya ku dhacaya saas weeye dabcan way inta si daawadayaal haddaynu kaga nimaadno gabaygaasi kooban bal markana waxaynu mar labaad ku nasan doonaa dhanka kaalmaha heesaha weliba ka bixi mayno xayndaabka haddeer aynu ku sugannahay ee waxaynu eegi doonaa heesaha uu abwaan ababe isagu sameeyey qaadaanna fanaaniinta kale markani idin carabaabi mayno ee indhaha macallin ah daawade heeskan kusoo dhawow
xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahan ka soo xulay adaan kugu xadaayadaye xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahan ka soo xulay adaan kugu xadaayadaye وانا قاري حير كدينا نكو حريراي حتى هذا الكحيسها مرتدى حديد كسوغانتا نحو حنك الصوح ليدا نكو حدا يدي حتى هذا الكحيسها مرتدى حديد كسوغانتا نحو حنك الصوح ليدا نكو حدا يدي وانا قاري حير كدينا نكو حريراي كسنمو الله كودشيو قرشا حيل ديري سيدا حور العينتي جند لنا حياضاي حفيداي حسيلياي نفتاد حيسك بلساي كسنمو الله كودشيو قرشا حيل ديري سيدا حور العينتي جند لنا حياضاي حفيداي حسيلياي نفتاد حيسك لساي كفتن أنحجيني والله حين ويركو حق نيسا أورو الحلالي سيباتكو حرقو تاي قلبي حالا بالذي والله بحروري ياهي نقيا لي اللقيا وقبي نفتاد حيسك لساي كفتن أنحجيني والله حين ويركو حق نيسا أوروني حلالي سيباتكو حرقو تاي قلبي حالا بالذي والله بحروري ياهي نقيا لي اللقيا وقبي نفتاد حيسك لساي سيدي حواء إيو آدم باليسكو كان حلي حرف يدا قرانك يدو عنكو حجاباي سيدي حواء إيو آدم باليسكو كان حلي حرف يدا قرانك يدو عنكو حجاباي كوحنتي يا إلهي حكم حول الشضادي سيدي حواء إيو آدم باليسكو كان حلي حرف يدا قرانك يدو عنكو حجاباي سيدي حواء إيو آدم باليسكو كان حلي حرف يدا قرانك يدو عنكو حجاباي كوحنتي يا إلهي حكم حول الشضادي انت حاوليت مرواناك لقو حسوسنادو حسلداي حبوني اذانكو حشمياي إشا حاسدين تيو نحلقكم حمياني انت حاوليت مرواناك لقو حسوسنادو حسلداي حبوني اذانكو حشمياي إشا حاسدين تيو نحلقكم حمياني كفتن أنحجيني والله حين ويركو حق نيسا
روني حلالي سيبات كحرقوتاي قلبي حالم بالذي ولا بحرور يا هي منقيا لي اللقيا أقبي نفتر حيس قلساي كفتن أن حجيني ولا حين ويركو حق نيسا روني حلالي سيبات كحرقوتاي قلبي حالم بالذي ولا بحرور يا هي منقيا لي اللقيا أقبي نفتر حيس قلساي كفتن أن حجيني ولا حين ويركو حق نيسا روني حلالي سيبات كحرقوتاي قلبي حالم بالذي ولا بحرور يا هي منقيا لي اللقيا أقبي نفتر حيس قلساي inta si daawadayaal haddaynu kaga soo noqonno heesta si aadka u macaan ee uu ku luqeynaya fannaankeena xabad colaad oo haddeer aan ku sugnayn dalka balse ku sugan qaaradda Ameerika heeskaas xasiliya haddii aan intaasi kaga soo noqonno abwaankii sameeyay halkan buu fadhiyaa abwaan ababe heeskaasi abwaan bal iyadana tacriif kooban heeskan heesahan ugu jeclahay buu ku jiraa dabcan jacayl baanu iga soo baxay waan gartay waa su-aashii iminka aan ka jawaabayo kale ahayd qalbiyada wixii qalbiga ka soo baxaa qalbiyada dadka taga dabcan heeskan waxaan sameeyay xaaskayga anigu xafida dhowr magac baa ku jira xafida inada xasiliya ayaa ku jirta magaceeda caadiga ahi waxaa la yidhahaa habboon magacaantan ula baxay maana taa ka mid ah allah isku markay aamin maad mahadsantahay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahan ka soo xulay adaan ku xadaayaday waana gaari xeerkeed inaan ku xariira xilkasnimo alla ku dhashiye garasho xeeldheer kabtan aan xajiiniya lahayn weer ku xaganaysa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaa xilkasnimo alla ku dhashiye garasho xeeldheer kabtanku waxaa la yidhahdaa hadduu run yahay dee waa xalaal wax run haddii lagu kabtamo oo run ah waa xalaal marka waa run sheeg baa tahay bay ka dhigantay ruuxi gaariyin baa intaana laga helaa maasha allah aad iyo aad baan u salaamaya xaaskayga habboon waan gartay annaguna sidaas leeg salaantaa la mid ah ayaan hawada u marinay aad baad mahadsantahay intaas haddaynu kaga soo noqonno heesaasi marka laga hadlayo dhanka murtida iyo abwaanadu way isku jiraan abwaan waxaa jira dhowr luuqadood ku gabya abwaan luuqad ku gabya geygan haddeer aynu ku sugannahay Djibouti waxaa lagaga hadlaa tiraba 3 luuqadood haddii ay soo afaraysana waxaa jirta luuqad kale oo soo afaraysa oo carabi noqonaysa waa luuqadda koobaad ee Soomaaliga oo talabaad oo Canfariga saddexaad oo Carabiya iyo afraad oo French luuqadahaasi adigu door noocee baad ku leedahay marka laga gudbo luuqadeenan haddeer aynu ku wada sheekaysanayna Soomaaliga luuqadaha kale ma talawdo kuma gabin waan gartay kumana heystay laakiin de waan ka aqaanaa kulleeyo waa luuqadihii waddanka lagaga hadlayay waa laga maarmaan intaanad ku hadala dhegtaa laga yaqaana xogaa laakiin kuma gabin suugaanteeda ma soo gelin anigoo suugaan ahaan af Soomaaligan ku kooban marka abaaba mise luuqadood buu ku hadlaa waa la odhan karaa afarta luuqadood Djibouti maanta lagaga hadlo anigoo luuqa Soomaaliya iyo Carabi luuqada Soomaaliga iyo Carabigan labadaas aad uga hadashay Frenchiga sida isugu tiin isaga kulley waxa weeyaan waa luuqadan la noolahay oo dhegtaan ka aqaana waa gartay inta si haddaynu kaga nimaadno bal isagana markaa waxaan xigsiin doonaa gabaygeenii waxaan xigsiin doonaa mid ka mid ah gabayada halkani aynu ku hayno maanta gabaygan wuxuu ka hadlayaa dhaqanka iyo hiddaha toos baan u gelayaa waan gartay waa yar dheer yahay xoogaa laakiin sheekadu haddaad sida u bilaamaysa ula socoto xagga dambeyn ku raacin haddii aan waqti u helno xalay gelin dhaxaadkii waqti geelu raamsaday gurcudkuna madow yahay rayaduna gigiman tahay onkodkiiyo gufaacada labadaba gurxamayaan dhulka goodigiisana gabadana qabow iyo biyihii isgaadheen dadku gamacsanaayeen ana aan go'aygii isku duubay gogoshoon hurdo dheer gandiidsaday dabadeed ka soo go'ay anigoo galgalashada gadgadoonka dhinacyada fikir laygu guud furay goohaayo keligay gurigan ku hoos jiray iridii ganjalaha sow lagama gowsiin sanqadhiya garaacii marti goor xun socotoo daadkii go'doonshiyey waxaan mooday soo guday dhaqso ugu gurmaan idhi gelin horeba waan furay durba waa la soo galay waxaad gaadhi moodoo ku gurguurta laba raaf garbahana diyaarada madaxana galaal ku leh
gacmahana dadka uga eg ayaa soo ganoodsaday wuxuu yidhi gobay nabad naxdin baan gag soo idhi orodkiina waan gabay hadargaangii iga nuqay wuxuu yidhi dib ha u guran ha gariirin ababow ku guhaadin maayo gacanqaadka ii dhib gacantiiyo salaantuba inkastay gar ugu tahay geedahaba ku waajiba kuma garanayaan wuxuu yidhi gudgude iyo guhaan falekii aan ahay waayeel gaboobo gallin soo jiraan ahay guun waaye aragoo cimri gaadhay baan ahay gabayana waan ahay kolka waan garwaaqsaday isla garanay sheekada waxaan idhi guhaan yahow geygeed ku nooshahay halkeed guri ku leedahay ciddeed gacal wadaagtaan wuxuu yidhi garaadluhu diriirada godkooga iyo miicaadda gaarka ah kooxdimaha isgarab yaal afagaalle iyo naaf xubnaha iska cashada xidigaha ka gooshee hadba dhinacu guuriyo guhaan falekii aan ahay caawa guurahaygiiyo geedigan kormeerkaa waxaan kuugu soo galay gabay iyo warbaan siday gudbiyoo dadka u sheeg dhallinyarada gaadhsii bulshadii guddoonsii balina gar qaataan wuxuu yidhi garaadluhu dhaqankii guyaal hore geyigeennu soo maray wada gaadhi maynoo gabay laguma koobe eh in yar oo maguurto ah aan kugu gubaabshay ababow balgooga dadkan geeska joogaa hawraar u gaariyo hiddo lagu gartaa jiray gobonnimo absiin iyo xeer geesi baa jiray marka gari timaadana geed laga hadlaa jiray odayaal gorfeeyoo xaqa gudi karaa jiray gabdho kaa xishoodoo hadal gaaban baa jiray golo lagu ciyaaroo laysugu gabiyaa jiray labiskiiyo dhargadashada habu gooniyaa jiray gundhataa la xidhan jiray iyo garansi doole ah kaba saanta geeliya laga talo gob xoolaad golxadka iyo bilaawaha gaashaan xariira leh habluhuna garays iyo mara gadaflahoo wacan oo boqorka gaadada marka ay ku geejaan dhaclahana ku gooyaan sida gool yaroo uguba ma geeyo laba jira dhexdu gacan mugee tahay timaheega guudkana burcad loogu gama dhaqay oo ay gun iyo baar sida goray haldhaagii galabtay werwadhayaan gu'i waa adduunyooy quruxdeedii gaarkiima wax gaadhayaa jira xagga guunya dhaqashada waxaa jiray gamaan faras geesleyda qoob kale iyo geela waaweyn idihii gaska lahaa iyo gaabanow adhi hoygiyo galliinkana aqal lagu gamaa jiray gembis laba daryaale ah geediga hayaankana xoolaha gu'i iyo dayr hadba waxaa la geyn jiray dhulka meesha goosi leh ka onkoda gudgudo roob mayguna ka gibirsado gurgurshaaga reerka iyo saabaanka gurigana waxaa daadgurayn jiray awr gibilma daadsho ah hayin geesi tababaray goortaad hoggaanka iyo keenada u geliseed kabad gaari tidicdiyo guufka iyo darbaalka iyo afartii gamuun iyo rarka gari ku siiseed caynkana ku gunudee u adkayso gacamada iyo baydii gaabnayd eed xadhigga guudka iyo qarqarsiga ka goyseed u ishaarta gacantana markab cadan ka goostiya ma yaqaana gaadiid gebi iyo xaraar iyo kama maaga gariyaad uma baahna gaaswaal isagaa ku geyn jiray goobtaad u baahnayd gooraha abaareed markay reero geediya beeluhu isgaadhaan laysuma gadoodayn gefka way necbaayeen iyo godob walaalkood waxaa geela wadi jiray inayta gaamuray isagaa xergayn jiray gulufkiyo colaadaha dadka dad la gara maraa jiray gulufkiyo colaadaha dad la gara maraa jiray oo birima geyda ah waayeel gaboobiyo maxas iyo gambooley gacan looma qaadayn geel iyo rag mooyee gabdho lama xumaynin adhina laguma goohayn geedi socodka nabadda iyo danta guud ahaaneed waxaa gaadh ka hayn jiray dadka goobta wadayaal dhirta lama gamuurayn gudun laguma jeemayn geedaha muhiimka ah ee laysla garan karo gudun looma quudhayn gunta laguma goynayn mag haddii la kala galo geedkaa la tegi jiray geel baa la bixin jiray markay labada geesood odayadu garramayaan waxaa gebagabayn jiray guurtada dhexeeya talada iyo guddoonkana oday geesiyaa jiray oo geesh dhan maamula tolku guud ahaantii godololo ma lahayn markay laba gayaan isa soo gacloodaan golahaa la iman jiray gaba baa la sidi jiray guntin baa la furi jiray gunyaa la bixin jiray faras gooba iyo qori martigelinta socotada sooriyeyn u gaariyo harag loo goglaa jiray gool baa la qali jiray gacantii waxbixintana dadku gaabis ma ahayn lagamana gudboonayn waxaan idhi guhaan yahow dhaqankii guyaal hore waxaan markaa isbarbardhigayay 3 dhaqan bal dhaqankii hore oo dhaqankan maanta haddana iga warrami doona su-aashan markaana weydiinaya waxaan idhi guhaan yahow dhaqankii guyaal hore geyigeennu soo maray hiddaheennii gaarkii waan kaa guddoomiyey bal kan galabta joogana tala gaaban iga sii guuraaga dhaqankii ma ku gaadhi doonaa dhaqankii caynka ahayd ka warramaysay guuraaga iyo baadiyaha ma lagu gaadhayaa imka ma jiraa wuxuu yidhi guyaaladan dadku garashadii ma leh dhulku wuu gabaabsiiyey geedkii caleen ma leh laamuhu gacayr ma leh gorofkii hogays ma leh adhaygii garhoodh ma leh gembiskii alool ma leh kabadii gankii ma leh geedsankii xariir ma leh gabdhihii xishood ma leh gacalkii martabad ma leh gelbiskii ciyaar ma leh gobonnimadu magac ma leh geesigu ammaan ma leh doqonkii gabtood ma leh
gardarradu canaan ma leh xilku gudashadii ma leh gartu xaajadii ma leh odaygii go'aan ma leh galladii abaal ma leh guurkii nidaam ma leh hablihii gayaan ma leh gaadgaadku cee ma leh gabaygii sarbee ma leh murtidii guddoon ma leh godihii ciyaar ma leh garhku haybadii ma leh gulufkiina xeer ma leh oo dagaalkii waxaa jiray dad birimageyda oo aan la taaban marka dagaal dhacaan iminka dee maxaaba loo eegi gantaal ma meel lagu sii daayaa ubad iyo maxay iyo looma kale waa la wada dhintaa markaa nidaam ma leh gulufkiina xeer ma leh wuxuu yidhi gardaranaa xaajadu guracanaa ababo guyaaladan reeruhu ma guuraan hadba meel ma guushaan hadba meel ma gooshaan jiilaal hadduu galo oo geelo xayskii gubannada u dhaadhaco gugu maalintuu do'o ninba waa godkiisii iyo tuulo garabkeed meel wiilku gaawaha goray caanaheegii ku garaaba raadsado garabgii la cuni jiray guuraagu wuu nacay midhihii la guran jiray geedkiiba wuu shiday dhayd iyo gadhoorhkii gurigii ma yaallaan subagii guduudnaa gunta dhiisha kuma jiro faraskii iyo gammaankiisna waagu dabargo'ay awrkiina goorahan gadashuu ku ron yahay doobkiiyo gashaantidu guunyada ma raacaan isugeynna sheekadu waxa ay ku gobo tahay guuraagu waayadan ku gabood fal tiisii mana gaadhin tii kale tiisiina uu ka tegey ma gaadhin awrkii gadashuu ku ron yahay awrkii da in la iibiyo wax ku dhaamo male lamaba guuro waxba laguma falo mana gaadhin afartaa ka soo gudub ha ku raagin gocashada ka gilgila wixii hore tan dambena ka gaadhsii warkii aanu gaagixin gudbiyo dadka u sheeg bulshadii guddoonsii dhallinyarada gaadhsii balana gar qaataan waxaan idhi gudgudayahow lama gaadhin qaybkii ee garashada wixii maqan guulaa yaqaane balse talada guunka iyo waayeel garaadla ah guna lagama waaye saadaaladii guud waayaha gadaal jira guuraagu soo noqon bal xilliga soo socda wuxuu yidhi allah garan waxa galabta joogiya qaybka iyo go'aankaba eebbaa guntooda og aadmigu hadduu golaha waraar ka gadaweyn ababa u gaf weeyaan balse gacallahaygow dadku wuxuu la gaar yahay caqli iyo garaad buu ku gallada ilaahay waana lagu gargaartaa saadaasha guunkee iga gurud farriintaa wuxuu yidhi garaadluhu geeduhu dhar weeyaan marna waa gasiinkii midhihii gacayrtii hoobaan la gurubsado iyo raashin gooniya kolla waaba gurigii aqalkii gagaabnaa iyo hoy la gali karo dhaxantana gabbaadka ah marna geedku waa qurux galabtii carraabaha ama goor barqa ah oo gulolada caleentale dhirta oo gugii helay qorraxdii gun iyo baar ku gembiday fallaadhaha oo ubaxa guudka iyo cambaluusha geedaha marna aanad kala gelan quruxdooda gaarka ah gelin ruuxa daawada gaajaba ma qabatee oo wax la iska gooyaa gaagaabka mooye dhirtii geedanka ahayd marka dhuxusha loo gubay ee geebka shaahiya lagu cuna garaabada maxay goosan xooluhu geeli muxuu cunaya adhigii gaabnaa dadka xoolagaradka dhaqashada u guuriya miyigaal ku geli magaaladu bulshada gud wada gaadhi maysa marka la isku soo go'o isu keenta gaajadu miyaan la isla gubanin dhaqaaluhu gar noqonayn kolka bari guntii buu ka gudutay waagii baa soo bariyay isagoo sheekada ii wada kolka bari guntii buu ka gudutay waagii wuxuu yidhi guddoonshow markan geedibaane sheekada gunteedii aan soo gunaanado dhallinyarada geeskow intaad dhaqanka gaalada daba gaardiyaysaan ee geesinimada iyo hiddaheenna gaarkaa ku gabood falaysiin xaqa gees maraysiin guulaysan maysiin dadnimada gunteedana marna gaadhi maysaan heedha gacalahaygow shimbir garab labaa tidhi inkastuu go'doon yahay ama meel gasiirada kuma gaba dhulkaagu ee gami maayo jeeroon ciiddaydii gaadhay cagku gogo la seexdo hawraartan gaarkaa waxaan uga gol leeyahay geyigiinnu waa hodan waa guri barwaaqa ah macdan gudaha jiiftiyo gaas iyo badrool iyo dahabkii guduudnaa iyo dheema geesale khayraadka gaaxdiyo nimcadiisa goorka ah dhallinyara gabdhiyo wiil isku gacashadu yidhi gacmo wada jir mooye midna gaar ahaanteed waxba goyni maysee isgargaarsadu yidhi isagoo gurxamayo gudashada salaantii gacan haadinayuu isha gibirsigeedii ku garooray heegada iga duulay marka halkaas ku dhahay gabaygii waayahay duhaan isagana intaasi haddii aynu kaga nimaadno waxuu ahaa gabay aad u dheer misna micnaah uu xambaarsan yahay aad u weyn yahay dee haddii aynu isnahno guddiga caawaba halkaa ababa ku waraysta oo bal sugaantiisa iyo hibadaa alla siiyey ka gungaadha wallay ka tahi laga gungaadhi maayo innaga oo aan halkaasi weli ka tegayn markana aynu ku noqonno dhanka kaalmaha sugaanta iyo weliba heesaha abwan ababe markan heesta idinku soo maqan waxaa qaadaa fanaanka aan idhaahdee maxamed bakaal ciro waana heesta awliyo heeskaasi bal markaynu wada daawanno dib ayaynu isugu soo noqon doonaa innaga iyo abwaanka iyo weliba qayb kale oo ka xiisa badan qaybihii hore oo aan anigu idiin ogahay bal daawasho wacan
nafto abuuriya qaan farxadii jiray korkaygaad ka akhrido
qarido waxaan kugu oran lahaa afkaad kala soo baxdee abbay